horta qisadeedu waxay ka bilaabanaysaa waa markaan ahaa dugsileeda aan ardayga ahaa form 4 kaan ahaa waxaa jirtay gabadh anigu aan alaqow ahaa kaba galaas inta aan garanayn marka gabadhaas aad baan uga helay dhaqankeeda ma xataa maalmaha ay jirto iskoolka aniga la sixi jiray oo wad garanaysaa de iskoolada wala iscaadin jiray inkastoo inka aan garanayninba ina sidii hore tahay inay caadi tahay dadkii dugsi soo maray marka ay maqnaato kale waan sixi jiray kadib gabadhii anigu aan ka helay waan isbaranay intaasoo dhan waxaan u sameynayay inaan isbarano un bay ahayd kadib gabadhii cala kulli xaal waan isbaranay xidhiir baan soo bandhigtay xidhiirku way aqbashay laakiin dhankaygu u badnaa jacaylku aniga dhankaygu u badnaa waxaan xasuustaa maalmaha ka mid a markaan imtixaankii dhammaynay anigana waan isku ficilin maamulaha iskoolka yaa waxaa dhacday inay ay ku dhacday galaaskii kadib aniga intaan baxay baan kala soo hadlay maamulihii oon welibana xataa ay ku qaadatay inaan kharash ka bixiyo oon kharash ku dhiibay si uun xidhiirkana uuna u kala ogeyn oona xaggaa u kala tegin dee iyada isku waayinoo dee laba kala sarreeyaad u tegin exactly marka qof aad isku cusbeedeen oo jacaylkiina weli hirgelin say adiga kugu noqoto inaad lacag ka dhiibto horta qof markaad adigu jeceshahay inuu jacaylku cusub yahay inii kale kuma kala qaadanaysid sababtoo adiga ruuxa jecel marka waxbaad ka dhex arkaysaa aniguna waan kuu sheegay jacaylka riyo dhan baan ka dhex arkayba oo inay reerkayga noqonayso marwadeeda noqonayso oo awlaadeeda caruurteeda ay noqonayso yaa baan ka dhex arkayay xitaa waxaa jirtay dhalinyaro aan saaxiibo ahayn markaan aan galaaska wada dhigan jirnay aniga aan saaxiibo ahayn oo iyada igu diri jiray iyadana way is yaqaaneen oo iyada is sii garaneen waxay igu diri jireen iyada si aan u kala hadhno inay kala shaqayn jireen jacayl xaasidna waayo hore loo yidhi markaan inay kala dhex shaqayn jireen calaa kulli xaal waan kasoo gudbinay dhalinyartaas iyagu oo aniga oo markii dambe dhalinyarta anigaan saaxiibo noqonay anigaan saaxiibo ahayn wiilal bay ahaayeen anigaan saaxiibo noqonay waxaa dhacday inaan dhalinyarta xagga markaan u soo badanay ay sheekooyin iga sheekeeyeen gabadha oo islahaa waxaas waa isku diritaankoodii hore iyo shaqadoodii ku jiraan oo maskaxdeeda geli weeyday horan bay weli siyaastan maskaxdeeda geli weeyday markaas waxaa sheegtay mararka qaar inay isku diri jireen waxyaalo aan maskaxda geli jirin ay ku sheegi jireen waxyaalaha nooga faallada niyo waxay igu dhaheen gabadhan awlaad ayaa u joogta oo reer ayaa soo martay gabadhii yareed ee iskoolka dhiganaysay gabadhii yareed ee form 4 kala dhiganaysay ayaan jacaylka u qaaday waxay igu dhaheen waxay soo martay guur oo laba awlaad u joogta calaa kulli xaal waan tixraaca sheekadii taa maxay ka wadeen in labadii isku diraan mise wax xaqiiqo jirta xaqiiq ma noqon doontaa hadhow toole sheekadaas oo marka baaritaan aan ku sameeyay xaqiiq noqon doontaa gabadhii baan u tagay waan weydiiyey way marmarsatay min caadiga jawaabin kadib waxaan ogaaday asxaabteeda inay ii sheegeen in xaqiiq tahay oo arrintan jirto gabadha isu dhawan iyaga family ahaan welibana marka qofka markaad xiriir yeelataan waad soo baranaysaan familkiisa iyo asxaabtiisa xaafadda dhan soo baranaysaa Soomaa gabadha family ahaan ay isu dhawaayeen yaa ii sheegtay inay reer leedahay oo laba awlaad noo joogto calaa kulli xaal haddana sidii baan ku qaatay sida iyada tahay iyadoo reer laba dugsi dhiganaysay iyadoo reer dugsi reer ma lahan markan waa la soo furay laba awlaad boo joogta laakiin sax oo reer way soo martay wixii yaraantu ka guursatay marka marka maxay ahayd gabadh waxa jirta ii sheegtay gabadha marka ii sheegtay anoo sheekada marka sidii lagu sheegay waan ku qaatay calaa kulli xaal waxa jira jacayl aan u qabo gabadha Soomaa waan ku qaatay awlaadeeda wada sidan iyadoo waan ku jeclaaday haddana awlaadeeda ku qanacsaneed bil labada awlaadeeda ay wada taxta aan ku qanacsanaayo waan jeclaaday jacayl baan u qaba jacaylkuna jacaylku indhamale gabadh laba awlaad leh aad ku qaadato jacaylka jacaylku indhamale baa la dhahaa Soomaalidu saas tiraahdaa marka maxay ahayd la awlaadeeda xataa aan ku qaatay awlaadeeda aan ku qaatay ma xume waxa jirta gabadhii ficilada in la timaado oo aynan dhankayga wax dareenaba u haynin oo habeenada qaar xataa aan ku arko iyadoo wiilka la socota anigina aan xataa soo garaacin inaan ugu garaaco mooye adiga ku soo raadinay aniga ma soo raadinaysaba markaas niyo xaaladahaasna way iska jiraan inta badan gabadha inta badan isla joogtaan ma jacaylkeeda ma dhankaaga u socday mise dhankeeda jacaylku dhankayga u badnaa aniga sababta kugu kaliftay maxay tahay iyadoo reerley inaad ogaato caruur la welibana sababtaan ugu qaatay waxay tahay anigu waan jeclahay oo jacayl dhabaan u hayaa markaan weydiiyey su-aasha aan ku iri maxay ahayd maxaad sheekadan iiga qarisana oo xaaladan jirta aad iigu sheegi weyday waxay sheegtay inuu aabaheed ku qasbay markii sideedka ahayd oo lagu daray nin adeerkeeda oo qurbaha ka yimid iyada ay naadir yihiin baa lagu daray kadib wuxuu calaf Soomaa way kala tageen sidaasina dhibaato badan oo soo martay markay kala tageen kadib awlaadeedii iyada soo korsay kadib marka xaaladeeda dhibaatada ay iga sheekaysay
jacayl dhab ayaan u sii qaaday jacaylkii aan u hayay lama laabha kuwa si loo jibaarmiba intaas oo dhan markaas la soo marteen xagee baad ku kala dambeyseen markaan aan iskoolkii ka soo baxnay waxaan noqonay arday jaamacad u soo gudubtay aniga markaa waxaa lagu soo qoray goobtii aan deganaa ayaan jaamacad ka bilaabay magaalada aad joogteen iyadana waxaa jaamacad loogu soo qoray magaalo kale oo naga shishay annaga kadib markaa waxaa jira family barbaray xaafadooda ay caqabad ka hor jirtay iyada ay sheegtay marka xagga markay tagto waxay u baahatay waxyaabaha ay weydiisato waan u diri jiray anigana biili jiray aniguna xaafadana iska joogay aniguna arday baan hayso ma adigoo arday hawlahaygaas iska watay magaalada iska dhex dhaarir jiray ninka raggiis waxa ma waayadii صح marka aniga biili jiray macalliyada waxa aad xoogsataad waxaan helo waxay u baahan tahay waan siin jiray waxaan anu hayo kama hagran jirin waxa dhacday markii halkii joogtay aan halkan kala joogno mararka qaar waan u tagi jiray markaan fasax yar aan helo anu u tagi goobta ku baranayso ana safar gali jiray goob sayr ku baranayso anu u tagi jiray aan ku soo kulmi jirnay waxa dhacday inay inantii ay isbedesho oo sidii hore ay ahayd ay noqon weydo kadib dhacdo isbedelka marka maxaa keenay aan ku soo wada marka inantii waxaan ka dareemay isbedel kadib waan safray halkii baan ugu tagay waxaan arkay iyadoo nin la joogtaba iyadoo qof kale la joogta sax waan wareystay waxay ugu tiri ninkan xidhiir baa naga dhexeeya oo anigana waan ku ori oo intaas sarfaad ku soo maray kadib wadaway aamustay haddana anigu waxaan ahay nin wax jecel Soomaa naf wax jecel ma quusata hore loo yiri haddana saasay tahay waan ka gudubnay caqabadaasna adoo intaas oo dhib soo maray gabadha waxaas dhib u soo maray oo waliba awgeedin iyadoo reer soo martay oo waliba gabadha ahayn qof arman ahayd sax ma marka ma kula ahayd inay kula qaldan tahay oo fikirkan aad ku socoto oo fikir qaldan ku ah bas jacaylkan baadiga ku hogaaminay marka isla xilliga aniga horta wala saxsanayd oo markaas jacayl baa indhasaabay waxa ma arkayninba laakiin hadda hadii la weydiin lahaa iyada mooy cid kale ma arkayninba laakiin hadda hadii la weydiin lahaa oo la oran lahaa gabadh xididna ka dhaxeeyo ay ku tiraado wiilka xidid naga dhaxeeya sheekada dheer iska dhaxata inay la hadasho telefoon kula hadasho ayaaba khalad ila ahba oo isla xilliga oo isla halkaas ay soo kana dambeyn lahayd aniga iyadaba صح